بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خارج برنامج سديدك joogtiin aad baan iibsanaa walaalkana cali jaan mar labaad iyo kulanti wanaagsan aad baad ugu mahadsantihiin daawashada fiidiyogan ummada Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka joogtiin waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak ilaahay Ramadaanteeda ha inagu gaarsiiyo cimri dheer iyo caafimaad qab ilaahay inteena dhiban Allah dhibta ka saaro inta cudran Allah caafiyo intii geeriyootana Allah u naxariisto inta noolna ilaahay waqti fiican way ku cibaadaystaan Allah siiyo inta markaan ka soo gudubno insha Allah maanta waxaan istul taagi doonaa insha Allah biidmillaahi kariim 4 ilaa 5 qodob oo ku saabsan 12 Abriil iyo wixii ka dhacay caasimadda ummadda Soomaaliyeed ciidamadii qaranka ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wixii la filayay iyo wixii laga sheekeynayay maxaa iska bedelay maxaa mijaxaabiyay intaasaan isku dul taagi doonaa insha Allah biidmillaahi kariim meel kasta adduunyada ka joogtiin mar labaad baan ilaahay Ramadaan mubaarak okay ummadda Soomaaliyeed hadaba maalmahan oo dhan waxaan arkanay asbuucii ugu dambeeyay wax saa isku daba socda oo laga hadlayo qaranka ummadda Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxweyne Farmaajo kaasoo la hadlayo madaxweyne Farmaajo doorasho ma rabo madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa inuu waddanka mijaxaabiyo madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa inuu waddanka inqilaabo horta su'aasha ugu weyn ee aanu gelinka isweydiinay waxay ahayd inqilaab wuxuu ku fiican yahay qofku markuu waddanka dibadda uu ka joogo ama si macnaha markuuna ka tirsanayn xukunka marka waqtiga uu jira laakiin nin madaxweynaha oo waqti meeshii bay isagu ka taliyo haddana la leeyahay waxba inqilaab iyo aad cajiib ay ahayd aad baa la isku dhex marayay waxaana la lahaa 12 Abriil maxaa dhici doonaa waxbaa la isku dhex marayay wixii haddaba maxaa bedelay xaqiiqatan wixii waxa bedelay waxa iga dambeeya ee quruxda badan leh ayaa bedelay meeshii laga filayay ee qof waliba u dhagtaagayay inuu inqilaab dhacayo inuu waxani dhacayo intii wixii balaayada laga sheekeynayo dhanba waxa bedelay waxa quruxda badan leh ee iga dambeeya ama waxa aad u jeedin horta mar labaad qaranka Soomaaliyeed ciidamada qaranka Soomaaliyeed waan hambaleynayaa waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay bay igu sumay maanta inaan arko mar labaad 3 sano ama 2 sano ka bacdi ciidamo ummadda Soomaaliyeed leeyihiin oo sano qurux badan sidan sameynaya sano gaashaaman inkastoona la joogin meeshii aan rabnay laakiin haddana inaan wax uun calaamad aragnaa xaqiiqatan aad bay u qurux badan tahay waana wax lagu farxo وانا واحد لوجو فرحة حقيقة الحمد لله إلهي وانا نقول سمي إنان أرجنو أنت أمريكا اللي ما دو وحد بالسويدين تو أيتهاي يا توري بعضا وضن كوالا انقلاب يا مشكلة دن أنا وإحنا مسنا بعضا بعض الوقت على قلب يعيد وحنا الله توري إن مكان معارض كا إنه يوحن تيدان حريرها كمران ترى إن ده بشدة دل سوت شديو تبي تنا الله رجو وحي حقيقة لسوق قبطي يقرح ذي ما أنت هذا الكسين لكن يومي فهمين بس كحدا لكن لقى شقيسي قرش الله تلقى ليبونها إيجا وحلو تسي سايب الشدة والله الله والصوت شيديان معلنتن هاي وقردقان مالون وليه هاي بدحوين فرماجو لكن مين نقول وحي نقطي معلن قرنك الصومالي وليه هاي تدخل وح بدن أو قرح بدن هاي أركان خاصة وحي عقبات هاي تذكي كسور جيدة حقيقة لكن wixii meesha ka muuqday iyo wixii la filayay laba aad u kala fog bay noqdeen waana wax lagu farxo xaqiiq ciidan Soomaaliyeed oo saas oo kala inta marka laga yimaado waxa kale soo taagi doonaa bal hadaba ra'iisul wasaarihii qaranka Soomaaliyeed ee Rooble ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed ee Rooble wuxuu ra'iisul wasaare u ahaa qaranka ummadda Soomaaliyeed wuxuu ra'iisul wasaare u ahaa ciidamadan 62 sano jirsaday wuxuu ra'iisul wasaare u ahaa quruxdan موقته رئيس الوزراء وها وموهي رئيس الوزراء معارض وموهي رئيس الوزراء فرماج أوكلية وحنا اسكو قلدمي دنها شخصية إيا دنها دولية dadku way ismacaaridaan waxna wuu dhex maraa laakiin danta waddanka iyo wixii ku saabsan qaranka ummadda Soomaaliyeed ma gayaan macaaridnimo noocan oo kala ah mideelad waxa isku qaldamay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ma Farmaajo iskale mise qaranka Soomaaliyeed baa iskale waa su'aal ani maskaxdayda isweydiiyay anu waxaan aaminsanahay ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay Soomaali leedahay
farmaajona ma laha rooblana ma laha laakiin qaranka soomaaliyeed baa iskale haddii maanta tusaalaan kuu sheegaya maanta hadduu farmaajo dhinto hadduu caawa farmaajo naftu ay ka baxdo ciidamada soomaaliya o dhan ma inta la wada kaxeeya xabaasha farmaajo lagu wada aasaya waa su-aal meesha taalla waa maya jawaabtu ciidamada soomaaliyeed ee quruxda badan leh ee sida quruxda badan leh u gaardiyaya ee sanu labisan ee san quruxda badan leh ee adduunka o dhan soo jiitay mar farmaajo iskale farmaajo ma laha waxa iskale qaranka ummadda soomaaliyeed haddii maanta madaxweyne farmaajo uu ka tago waddankana waxaa dhaxli doona madaxweynaha bedela ilaahay umuu roobla noqdo marka waxaa aaminsanay rooble kaalinta maanta uu baneeyey inuu baneeye maahayn xitaa haddaan isaga la casuumin haddaan loo yeedhin waxahayd inuu soo xaadiro una la qaadso ciidamadiisa dadkiisa inuu farxadda la qaatay ahayd because ma laha farmaajo ma laha ciidamadan ummadda soomaaliyeed baa iskale taa waxaan kaga gudbanaa kaalinta uu baneeyey indhihii caalamka ayuu xitaa wuxuu tusay foolxumo aan jirin beledka foolxumo aan jirin buu tusay ra-iisul wasaaruhu inuu taa sameeye absolutely ma ahayn wax xun bay ahayd oon qurux badnayn xaqiiqatan laakiin isagun bay taasi ku tahay macnaha hagardaamo waayo isagu waa ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed anuu ra-iisul wasaare ii yahay ummadda soomaaliyeed inuu ra-iisul wasaare u yahay qarankan la dhisayo ama askartan quruxda badan lee socota meeshuu ra-iisul wasaare u yahay waa ciidamadiisii beritoola hadduu farmaajo tagana isagaa u aayi doona ama shacab ha ahaado ama ra-iisul wasaare ha ahaado ama madaxweyne waddankaba ha ka noqde intaa marka laga yimaado nimankii macaaridka ah iyaga laftoodu kaalintoodii may qaadan macaaridnimadu maaha inuu hadduu qofkan kasoo horjeedo inaan la kulmi karin ama meelaha farxadda meelaha quruxda badan leh inaan lagu kulmi karin taasi maaha macaarid anu waxaan u arkaa taasi inay tahay macaarid dhaafay xadkii loogu talagalay waayo macaaridkan waxaan aaminsanahay inuu yimaado kursigiisa uu fadhiisto khudbadda intiisa la siiyo wixii kaga waajibo uu ka hadlo quruxda waddankiisa la qaybsado dadka soomaalida kasoo horjeedana uu tuso soomaaliya inay tahay hal far ah taasaan jeclaan lahaa laakiin taasina may dhicin intaa marka laga soo gudbo bal haddaba ciidamada soomaaliyeed horta anu 40 sanan jira ciidamadii hore ummadda soomaaliyeed ka burburay xaqiiqatan anu maan soo gaadhin quruxdoodii laakiin maanta waxaan arkay wax indhahay in badan hay u haraadnaayeen qof kasta oo soomaaliyana qof kastoo damiirle qof kastoo halkan wax soomaalinimo leedhaa ay ku jirtaan xaqiiqatan maanta waxa uu ku farxo oo qurux badan ayuu arkay mar labaad baan hambalyeynaa ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedba inuu wax saa u qurux badani uu waddankeena ka qabsoomo ciidamo saa iskugu toosan oo saa u labisan oo saa u gaardiyaya oo sharafta iyo quruxdaas ay ka muuqatana indhahaygu inay qabtaan kuwa iga yaryar ee daada yaryareen aragba adduunyadu meel ay wax ka jiraanna inay arkaan inay leeyihiin waddan ama ummad ama qaran soomaaliyeed ama ciidan soomaaliyeed oo sidaan oo kala oo soo karaya insha allah biidnillahi kariim waxaan rajaynayaa waqti dhow oon fogeyn farmaajo madaxweyne uu iska tegi doono hadduu doono waa dhiman karaa wad buu leeyahay waa la bedeli karaa qiimayma samaynaysa waxaa qiimeeye samaynaya sharafta ummadda soomaaliyeed iyo ciidanka soomaaliyeed oo maanta soo kacay madaxweynaha kale ama isaga ha noqdo ama bedeli doonaana inuu wax qurux badan la wareegi doono oo qaranka soomaaliyeed meesha uu kasii socdo insha allah muddo gaaban gudaheedna la arki doono libaaxyadii africa qarankii ummadda soomaaliyeed libaaxyadoodii oo soo sare kacay adduunkao dhanna ay indhaha isaga soo taagayaan insha allah waqti dhow baa la arki doonaa biidnillahi kariim waana u hambaleynayaa mar labaad ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu hambaleynayaa maalinta quruxda badan leh iyo ciidamada maxaa kaloon lehay ummaddan soomaaliyeed haddaba ummaddeena soomaaliyeed dadku way iska horjeestaan wayna isdiidaan wayna ismacaaridaan marka inaga waxa iskaga keen darsamay marka laga yimaado madaxda halkaa la dhigo dadkeeniiba xitaa waxa iskaga darsamay mucaaridnimadii waxa u bedelay wax la yidhaha qabiil markaanu qabiil ay don't care waxba igama gelin qabiil waxba igama gelin qof jeclaysi waxba igama gelin qof anuu farmaajana waxba ima hayo waa madaxweyne ummadda soomaaliyeed qura wax ka badan ima hayo rooblan wax ka badan siin maayo waa ra-iisul wasaare ummadda soomaaliyeed aniga laakiin waxa sharaf iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku faanta waxa u ah waxa quruxda badan leh maanta muuqda insha allah biidnillahi kariim muddo dhowna waana ka bixi doonaa ilaahay baan ka rajaynayaa taasi ummadda soomaaliyeed mar labaadii mar saddexaad waan inugu hambaleynayaa quruxdaasi inuu ilaahay inoo daayo waddankeennana ilaahay uu nabad ka dhigo madaxdeennana maalin walba waraaq isku eryanayana ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu mid ka dhigo
waqti qurux badan oo intan kasii qurux badanna inaan aragno biidmillahi kariim iyo madax meel wada jeeda macaarid wax macaaridaya laakiin waddanka dhinaciisa qabta insha allah biidmillahi kariim ilaahay baan ka rajaynaya biidmillahi kariim mid baa laakiin farmaajo ka codsanaya haddii uu joogo waa nasiibkiisa haddii uu tagana ka ku xiga mid baan ka codsanayaanu waa codsi waxaanay muwaadin soomaaliyeed waxa weeyaan meeshan taandhada ee waddanka soomaaliyeed laga waalay ee ka macaaridkiina uu galo ka ra-iisul wasaarihiina uu galo ka madaxdiina uu galo waa meesha qaranka soomaaliyeed laga burburiyo waaye waxaan rajaynayaa waa codsi aan ku socda madaxda qaranka soomaaliyeed marka maanta jooga ha noqdo ama kusoo socda ha noqdo waxaan jeclaan lahaa taandhada in la burburiyo taandhada ummadda soomaaliyeed laga burburiyo in la burburiyo ayaa rajaynaya insha allah biidnillahi kariim waayo waddanka cidina igama laha sidaa aawadeed waxaan xaq u leeyahay inaan soo gudbisto cidda madaxda aniga inaan u gudbiyo marka madaxda qaranka soomaaliyeed mucaarid iyo muxaafid ra-iisul wasaare madaxweyne baarlamaan qof kasta oo qusayso waxaan rajaynayaa qaranka soomaaliyeed intuu mid ka noqdo taandhada ummadda soomaaliyeed laga burburiyo taandhada qof kastaaba u garanaya waxaan rajaynayaa taandhada in la burburiyo meesha laga saaro insha allah biidmillahi kariim waddan kastaaba qofka daba dhiliftee meesha u fadhiya inuu ka tago oo waddankiisa u tago waddan kastaaba wuxuu leeyahay safaarad iyo system la maro laakiin qarankeenna in laga maamulo taandho yar oo waddankeena dhexdeeda ku taala xaaram caleyg bay inagu tahay waa waxa weeyaan ber madow inagu taala waan rajaynaya insha allah biidmillahi kariim waqtigeeda dhow taandhada in la burburiyo ummadda soomaaliyeedna kii wax ka doonayaana inuu meesha ugu munaasibsan ee isaga qusaysa markaas inuu soo maro ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama wasaarad ha noqdo mid arrimo dibadeed ha noqdo mid gaashaandhigeed ha noqdo qof kastaaba qof wixii waddanka dan kale inuu soo maro wasaaradda qusaysa iyo meesha qusaysa laakiin inagu inaanan dad caddaana ama dad madow inaynu hoos fadhiisan ilaahay baan ka rajaynaya waanan codsi aan ugu gudbinayo qaranka soomaaliyeed oo dhan qof kasta qusayso madaxweynaha hadda jooga iyo ka bedeli doona ama isagaa soo noqdo ama cid kale ha noqdoone doorashtan waxaan rajaynaya insha allah inay wax qurux badan inoo noqon doonto sida doonta hawla alaaqato inay waxnu kasoo bixi doonaan biidmillahi kariim aad iyo aad baad u mahadsantihin ummadda soomaaliyeed meel kasta adduunyada joogtiin walaalkan cali shaamac mar labaad inile rabadaan